wafdigan oo uu hogaaminayay wasiirka wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar ayaa ka qayb galay shir looga hadlayay dib u soo celinta maamulka hawada Soomaaliya oo ka dhacay magaalada Montreal ee dalkan Canada oo ay ku taalo hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan duulimaadyada rayidka ee loo yaqaano ICAO. hay-adani oo muddo aad u dheer maamuleysay hawada Soomaaliya ayaa wasiirka gaadiidka Soomaaliya ka hadlay xogayaha guud ee hay'addaasi ICAO haweeneyda lagu magacaabo Dr. Fang Li in guddi farsamo oo labada dhinac loo saaro sidii dib loogu soo celin lahaa maamulka hawada Soomaaliya. markii uu shirkaasi soo dhamaaday ayaa wasiirka wasaaradda gaadiidka Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar u warramay warbaahinta qaranka Soomaaliya. waxaan ku heshiinay waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin in aan si wanaagsan isula shaqeyno si dawladnimo ah inay noo taageeraan muddo gaaban gudaheedna aan ku soo wareejin lahayn maamulka hawada in laga maamulo gudaha Soomaaliya. marka wasiir ma jira waqti mucayan oo la sheegay in ay hawada Soomaaliya maamulkeeda dawladda Soomaaliya dib ugu soo wareejin doonaan waqti aan isla ka wada hadalnay wuu jiraa waqtigaasna waxa ka horeeyay shir technical ah oo ku kulmi doono shirkaasi marka aan ku kulanno ayaa waqtigaasi aan finalize gareyn doonaa annaga proposalkeeni waan u dhiibnay waan u gudbinay waan kala hadalnay sida aan wax u rabno iyagana sida ay wax u rabaan oo nagala hadleen marka in general waqtiga waa naqaan waqti aad u dheer ma noqon doono laakiin ilaa iyo technical teamka ay ka kulmaan oo iyaga ku heshiyaan waqti mucayan ah kuma sheegi karo. Muxudiin Jaamac, telefishinka qaranka Soomaaliya, Montreal.